dhibaatada qaadku leeyahay cawaala ka hadlay waxaan rabaa qiso yar oo dhacday oo qaadka ka dhacday oo aan akhriyay sheekadaas inkastoo qoraagii qoray hadda aanan xasuusan inaan ku soo koobo oo barnaamijkan uga qayb qaato sheekadaas waxaa la dhihi jiray muqayiliintii isqiyaantay ciwaankeeda isqiyaantay marka laba nin oo qaadka cunta ayaa saaxiib ahaa waddanka Kenya ayay joogeen Soomaaliya markii civil war ku ka dhacay dadkii Soomaaliya dad badan baa u qaxay Kenya iyo wadamada dariska labada nin saaxiib bay ahaayeen nin xaas buu lahaa dadka qaraabadiisa ayna Yurub bay jireen ninna wuxuu ahaa nin aan reerna lahayn dad qaraabo ah oo u jira meeshana aysan jirinin ninkan marka xaas kale waxa loo soo diraa biil lacag fiican baa loo soo diraa qaadkiisu iska cunaa walaalihiis marka waxay yiraahdeen maalintii dambe annagu Kenya kuma biili karnee waa ku qaadaynaa soo bax oo ilmaha iyo islaanta soo wad isagii wuxuu yiri nin anu qaadkan inaan ka taga ma rabo walaalahayna waxay leeyihiin soo bax sideen yeelaa kiiba wuxuu yiri adigu ma waxaad rabtaa Kenya inaad qaadka iskaga cuntaa de ilmaha iyo islaanta anaa ku wadayay aniga igu qor aabaha reerka iga dhig maxaa la yiraahdaa aduguna qaadka Kenya isaga cun aniga xagga aadayo islaantii ilmaha ku wadayay isi qayl walaalahana lacagta ku soo direen habeenkii baa la qaylay oo marka arintii uu ku raacay hoostu ka xariiqay ninkii baa lagu qoray father of family oo noqday aabihii qoyska waxa noqday ninkii dulsaarka ahaa odagii wuxuu lumiyay mas'uuliyadii qoyska qayru mas'uul buu noqday qaad awgii buu ninkii wuxuu uga dhigay ilmihiisa aabe ninkii marka sidaas ayaa maaragtay sponsor bay ku baxayeen ninkii wuxuu ka haystay reerkii islaantii iyo ilmihii buu ka haystay kiina meeshii baa looga tegay isagoo aabihii qoyska ayuu Yurub galay kuwii la dhashay way ogaadeen waxay yiraahdeen kii doqonka ma meeshii buu ku haray naagtii ilmihiina ma nin baa soo ka haystay shilinkiina way ka goosteen ay u soo diri jireen shilina ma hayo xilana ma hayo ilmana ma hayo Kenya ka tuugsaday waa wareeray waa dhaga beelay waxa soo dhanna dhibaatadii qaadka u geysatay naagtiina waxay tahay warkaas doqonka ma warabnay adigu na guurso aabay noqo adigu reerka aabba ka noqo naagtii ilmihi wala wareeg naagtii ilmihi ba ninkii sidii kula wareeg waxa la yiri ninkii markay tala saa ugu cadaatay talu raadiya waxa la ragta shadeecir waa tulaataa kan labadeed rag buu u tagay wuxuu nimeeyo tacadigaas aan galay arintaas ay ugu dhacday walaalahay telefoonada iga qaban maayaan naagteedii iyo ilmahaygiina nin baa Yurub ku haysta sidaas ay ugu dhacday talaha la iga raadiyo waxay yiraahdeen warinkaar kugu dhacday anna waxa sameeyna ma naqaane Nairobi waxa ka soo raadisay ninkaas naagta qaraab ahaan ugu dhow waayahay buu yiri wuxuu soo helay hooyadii soo garooba ayuu soo helay wuxuu yiri nimayo ninkii dhacay hooyadii soo garooba Nairobi joogta maxaan sameeyaa waxa la tala nafkaaga dhow lama arkay habarta guurso habarta ina guursato ayaa nolol kuugu dhow islaantii buu shukaansaday eeday waa doqoobay maan dhow anigu rag had ma eeday wallahi wali waad fiicanta eeday wali waad fiicantahay islaantii soo shukaaminayay islaantii buu guursaday abartii markuu guursaday abartii buu biilkii la cunaa kiiba soo biilaya moogta markaasay tiri hooyo nin baan guursaday siyaana ku biilaya waa ninku islaanta ka dhacay isagu ma oga markaasuu biilkii u badiyay ninkii dhawartii baa ku soo noqotay nolol buu yeeshay oo waa fiicnaada waa ka foqday laakiin hadda islaantii ilmihii baa ka maqan kaliya wuxuu yiri waagin dambe hooyo adii adeerba waa idin qaadayaa oo sharci baan idin xareeyay say tira waayahay uu guuriyo marka bas marka waxa dhacday markaasay tiri waa nala qaadaya bas sharcigi baa loo xareeyay maalin heblaad ku qorantiin baa la yiri diyaaradda flightka farxadda ninkii ka badatay dhulka la wareegay
warna la iskama hayo ninkii ilmihiisa haystaa qaadaya isna kana hooyadii buu qabaa marka waa la qaaday ninkii Yurub markuu galay ayuu wuxuu yiri waxa soo dhaweynaa hooyo iyo adeer baan soo dhaweynaa nakeen gabadhii xaaskiisa ahayd oo ninkan ka dhacay soo dhaweynaa nakeen aeroboorka markii ay la yimid oo diyaaradii jaranjartii inta loo furay laga soo degay buu asagii soo hormaray asagii markuu soo hormaray habartii baa ku xigta markay arkeen ayuu ninkii waa yaabay ninka adeerka la sheegaya waa kuma adeer kale uu ka sii sugaya diyaaradda markaas habartii markii salaantay ayuu yiri hooy ay tiri adeerna waa kan markaas ninkii iyo islaantii hore oo iyana daalnimada ahayd oo ninkan maaragtay iyaduna markaas waxa weeyaan ka fasaqatay iyo habartii qofba walba waxa ku dhigay hadal ka soo baxa wala waayay naxdin macnaha shoog iyo farxad macnaha qosol gariir ay waxa isugu darsamay baa ku dhacay markaas tira hadba mid fiirisa marna odayga waxay fiirisaa wiilkeeda marna waxay fiirisaa ninkii la socday war ma haysta marka ala kulli xaal marka waa markii ninkii dalkii galay ba wuxuu yiri dhageyso horta waad khiyaantay macnaha sheekada ciwaankeedu waxay muqayiliintiis khiyaantay waad khiyaantay haddana adeerka baana islaanteeduna adiga kuguma xirna oo tuug baa tahay dan haday ku tahay magaalada ku dhuuma hadda wadanka ku dhex dhuuma tan ana qaba hooyadana ana qaba magaalada horta ilmaheygana ana leh soma labadaba ana leh haday dan ku tahay saayeel dikalaada yaqaan meesha aadis marka sheekadaasi marka waa sheekadii ugu yaabka badnayd oo qaadka markaasi ka akhriyay inkastoo aan qoraagii qoray aanan haynin oo aan xusi karin marka intaas aan rabaa marka barnaamijkan marka inaan markaasi kaga qayb qaato waxa iskeenayana waa qaadkii dhibaatada uu leeyahay reeraha uu burburiyana way badan yihiin marka intaas aan ku soo gabagabaynayaa